maxkamaddu shaki badan bay qabtaa waxaan ka shakiyey sababta ay gabadhii cunuga dhasho u soo hadashay ay u tiri Adnaan Moodalow magacaaga ka bedelaya cunug qof kale ku qoriya iyo sababta ku qasabtay inuu i gaaro ilaa heer uu waxbaan dilaya laanu ani waxay ogtid maalin kasta waa tileecay gabadha qaba lacaaya ilmihayga lacaaya wax dhibay uma hay sababta ilmihayga aan dhalay gabadha qaba gabadh sharaf badan weey what stress qof iska xaygta ma wax sheeg muxuu ka dhibaya noloshii laakiin Adnaan Moodal waxa arkay nafta qaba aniga marka washi qofku shaki loo daba mardaa عاكسي مرقع عنق أصيب مدى اللي ما سليده أريتان waxaan qabaa Adnaan Moodal maxkamaddu waxay u soo jeedinaysaa Adnaan Moodal إن على هذا waxay u soo jeedinaysaa in wiilka la geeyo safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Nairobi DNA laga qaado مية markii DNA laga qaado kadibna maxkamaddu waxay ka gacansiinaysaa Adnaan Moodal soo dembi gelin oo qof dilin oo aan ma taqaanaa dhibaato inta la egmarin in ay lawyer u qabanayso maxkamaddu oo Xuseen Ogaadeen looga yeerayo maxkamadda